ciyaaryahanada Kubada Kolayga ee gobolka Gabilay ayaa si rasmi ah iskaga xaadiriyay wareega dhamadka markii ay kabaha la dulmareen oo ay karbaasheen dhigooda gobolka Awdal. ciyaar xiisa iyo xamaasad badan oo ku dhex martay garoonka Kubada Kolayga ee Ciyaartii. xulka gobolka Awdal ayaa u muuqday bilowgii ciyaarta inay mid ka dhibca sareysa xulka gobolka Gabilay, balse dardar iyo dadaal ay la yimaadeen xulka gobolka Gabilay ayaa wax ka bedeshay qaabkii ciyaarta. goolal badanna ay kaga dhaliyeen ligooda gobolka Awdal. natiijada ciyaartuna waxay noqotay xulka gobolka Gabilay oo la yimid 49 dhibcood iyo gobolka Awdal oo la yimid 46 dhibcood. ciyaartii ka horeysay waxay la ciyaareen ciyaaryahanada Kubada Kolayga ee gobolka Gabilay xulka gobolka dhamadka oo ay si fudud soo jiileen. ciyaaryahanada gobolka Gabilay ayaa aqaaran dayalsan karin marka loo eego dadaalka ay sameynayaan iyo tababarka ay qabaanba. waxay u muuqdaan qaar ku guuleysan kara koobkan Kubada Kolayga ee Jamhuuriyadda Somaliland.